hay-adda adeega lacagaha yaryar ee Soomaalida laanteeda magaalada Harta Sheekh bixiyana maaliyadda shacabka iyo haqabtirka adeega bulshada ayaa laantan magaalada waxa laga furay 25 bishii Febraayo ee sanadkan loona aasaasay haqabtirka adeegista shacabka gudbinta lacagaha laantan ayaa ka shaqeysa magaalada iyo nawaaxigeeda iyagoo u bixiya adeega si hufan uguna shaqeeya shacabka si firfircoon hay-adan Hello Cash ayaa ka shaqeysa kobaca adeega shacabka muddooyinkan dambena ku soo kordhisay bulshada adeega ku inagoo aynu wada ogsoonahay in guud ahaanba lagu jiro waqti laga cabsanayo caabuqa coronavirus adeegan ayaa ka caawin doona bulshada ka fayoobida xanuunkan haddaba maareeyaha laantaas ee magaalada Harta Sheekh Mudane Xasan Maxamed Warsame ayaa nooga warbixiyay qaab adeegista shacabka hadaladiisina waxa kamid ahaa sida tan bismillaahir rahmaanir rahiim haddaan nahay hay'adda adeega lacagaha yaryar ee Soomaalida Itoobiya gaar ahaan laanta Harta Sheekh waxaan bixinaa adeeg maaliyadeed gaar ahaan waxaan siinaa shacabka Harta Sheekh iyo agagaarkeeda Soomaali microfinance waa baahitiraha haqabtiraha bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan xafiiskan ama salaantan waxay baahi adeeg maaliyadeed siisaa shacabka ku nool Harta Sheekh iyo nawaaxigeeda adeegyada xafiiska bixiyo waxa kamid ah saving in dadku wax ku soo saartaan wax ku kaydsadaan sidoo kale inaan transfer sameeyno oo degmooyinka gobolada ay bangiyada ku wali ama si fog ay dadkeena ay isku diraan si fudud ama si dhaqso emergency aan ugu dirno insha Allah ani asaaska xafiiskan wuxuu loo aasaasay waxa weeye in bulshada Soomaaliyeed laga haqabtiro adeega maaliyadeed dadka danyartaana oo qaxan qabto soo kobciyo Harta Sheekh ahaan laanteeduna waxa naga go'an inaanu si hufan si firfircoon ku dheehantaan ugu shaqeyno shacabkeega sidoo kale waxa jiray maadaama waqtigii qalaasi kadib xukuumadii hore dad badan oo diimo ku maqnaayeen si ama salaha ku maqnaayeen dadkaasi kulay hadda si fiican bay u bilaabeen inay soo celiyaan inta dhiman insha Allah waxaan iyaguna ku waaninaynaa inay soo dhaqsaab la iska soo celin maadaama ama ahayd laguna kobcinay dhaqaalahooga si dadka dambe iyaga ka dambeeya loo kobciyo loo maalgeliyo ka xafiis ahaan sidoo kale waxaan adeegyada bulshada u soo kordhinay bulshada Harta Sheekh u soo kordhinay xakuumada adeega ku iibso oo yareynaya lacagihii lumi jiray ama lacagii khasaare jiray qofku u dhig yareynaysa in mobilkiisa lacagta ku wato isagoo mobilkiisa haysto meel kasta wax kaga iibsado meel kasta kala baxo boqolkiiba deegaanka aan ka shaqeynaa Hello Cash bay tahay haday Soomaali microfinance tahay deyntii tahay haday saving tahay haday transfer tahay boqolkiiba deegaanka ka shaqeeya bulshada Harta Sheekh waxaan ku wacyigelinahay inay sida ugu firfircoon uga qayb qaataan uga faa'iideystaan adeegan ku iibsada oo soo biiray bankigu waa bankigoogii wiilashu waa wiilashoodii dad Soomaaliyeed ka shaqeynaya dad deegaanka oo shaqo ka shaqeynaya inay bankiga ku xidhnaadaan marada xambaa ku diraya dadka ay ku qanta lacagihii deynta dawladda hore qaatay in soo dhaqsaabeen iska soo celiyeen adbani salaamna naga TV marka hore salaam magacaygu waa Kawsar Maxamed Cabdilaahi waxaan qaabilsanahay waxaan ka shaqeeyaa xafiiska Soomaali microfinance qaybtiisa Hello Cash waxaan ku soo kordhinay adeeg cusub oo la yiraahdo ku iibso waxay u shaqeynaysaa sidii Hello Cash oo kale waxaad ku dirsan kartaa waad ka dirsan kartaa laakiin tan waxa ka go'aya waxyaabaha Hello Cash goosan jirtay way ka baxaysaa si free ayaaba kuugu shaqeynaa Xanaan Faarax Cabdiraxmaan magaalada Harta Sheekh Nabad TV